Yuan Giseke oo professor ka howlgeli jiray hay'adda caafimaadka bulshada isla markaana hore u soo qabtay xilka uu iminka Anders Tegnell u hayo hay'adda ayaa sheegay in dadka Soomaaliya aanay khatar ugu jirin inay u nuglaadaan fayraska corona. Radio Sweden ayaa Yuan Giseke oo hadda ka howlgala Karolinska Institute kuna howlan cudurrada la isqaadsiiyo wax ka weydiiyay sida uu fayraska u saameyn karo dadka Soomaaliya xilli la dhowrayo in bisha Ramadaan ay bilaabato. Kronisk sjukdom så kan det vara farligt att vara utan mat och framförallt att vara utan vatten så länge. Yuan Giseke ayaa sheegay inaanu soonku keenayn khatar gooni ah ee la xiriirta fayraska corona marka laga reebo dadka qaba cudurrada joogtada ee loogu yeero kroniska. waxaa la og yahay in qofka aan waxba cabin waxna cunin saacadaha badan ay doonta iyo afka buu qalalayaan laakiin taasi ma keenayso in qofku u nuglaado fayraska sida uu sheegay Professor Yuan Giseke. Snarast tvärtom skulle jag gissa att viruset trivs bättre i en fuktig miljö. Waaba bilcagsi sidaan u arko maadaama uu fayrasku jecel yahay bay'ad qoyan marka waxaaba la oran karaa in qofka Soomaali hoos u dhigayo khatarta uga iman karta inuu u nuglaado fayraska ayuu yiri. Skölja munnen med vatten, att man tar en klunk och sen spottar ut. Professor Yuan Giseke ayaa mida kale ku taliyay in qofka Soomaali ay wanaagsan tahay inuu dhowr jeer luqluqdo inta uu sooman yahay.